waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadan doono qodobo ay ka mid yihiin dowladda shiinaha oo ka sanqadhisay suurtagalnimada inay milatariga maraykanku ku lug leeyihiin faafitaanka fayraska corona ee magaalada yuhan, iiraan oo iyana sheegtay inay jiraan calaamado muujinaya in weerar dhanka biolojiga ahi uu dhaliyey fayraska corona. ayatullaahi khumeyni oo amray ciidamada iiraan inay ka hortagaan weerarada biolojiga ah iyo mid ka mid a la taliyayaashiisa oo laga helay cudurkaasi. jenaraal maraykana oo ka digay khatar xilligan oo kale ka iman karta jamhuuriyadda iiraan, iyo trump oo ogolaansho siiyey ciidankiisa si ay uga jawaabaan weerarkii habeennimadii arbacada lagu dilay askar maraykana qaar kalena lagu dhaawacay gudaha dalka ciraaq, iyo madaxweyne trump laftiisa oo lagu kari la'yahay inuu isbaadho kadib la kulankiisii madaxweynaha Baraasiil oo isaga kaaliyihiisii saxaafadda laga helay cudurka dilaaga. gadar oo culayska saaraysa badqabka caafimaad ee masaajidada kana dhigtay 5 daqiiqo xilliga u dhaxaynaya salaad kasta aadaankeeda iyo caqiimkeeda. qodobo kale ayaa raaci doona. ku soo dhowaada barnaamijka. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha Zhao Lijian ayaa khamiistii waxa uu sheegay in milatariga maraykanku ay ka dambeeyeen ku faafitaanka fayraska corona ee magaalada yuhan ee bartamaha shiinaha, magaalada oo ah xuduntii uu ka dilaacay cudurkaasi. mas-uulka shiinayska ayaa bartiisa twitterka waxa uu isku weydiiyey taariikhda kiisaskii ugu horreeyey ee corona laga diiwaangeliyey dalka maraykanka, tirada guud ee bukaanada cudurka qaba iyo magacyada isbitaalada ee ay jiifaan. Mr. Jian ayaa ugu baaqay Washington inay noqoto mid daahfuran oo ay ku dhawaaqaan xogta rasmiga. hadalka sarkaalka shiinaha ayaa qayb ka noqon kara dagaalada dhanka hadalka ah ee ay labada wadan isdhaafsanayeen muddooyinkii u dambeeyey, isagoo la taliyaha amniga qaranka maraykanka Robert O'Brien uu sheegay shalay arbacadii in falcelintii habsaanka ahayd ee ay goor dambe mas-uuliyiinta shiinuhu ka qaadeen ka hortagga faafitaanka fayraska corona ay kaliftay in adduunku aanu xilligii munaasabka ahaa qaadin tallaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa ee lagula dagaalami lahaa cudurkaasi. tan iyo intii uu cudurka dilaagii dilaacay bishii Diseembar 2019 waxaa u dhintay dad gaadhaya 5,000 oo qof, 130,000 oo kale in ka badanna waa ay la tabaaloobeen. hase yeeshee inkastoo uu si xawli leh ugu fiday ilaa 116 waddan oo caalamka, haddana toddobaadkii u dambeeyey faafitaankiisa ayaa si tartiib hoos ugu dhacayay gudaha dalka shiinaha oo ah waddankii uu ka bilaabmay waxyeeladii ugu badanna uu gaadhsiiyey. dalka iiraan oo uu fayraskaasi waxyeelo xun u geystay ahna dalka saddexaad ee ay dadka ugu badan u dhinteen ayaa khamiistii waxaa la xaqiijiyey in cudurka laga helay cali akbar walaayati oo ah la taliyaha ayatullaahiga iiraan. wakaaladda wararka iiraan ee tasmiim ayaa baahisay in cali walaayati oo madax ka ah isbitaal weyn oo magaalada tehraan ku yaala uu maalmihii u dambeeyey dhex galay dad badan oo cudurka koronuhu hayo, sidaana uu fayrasku ugu gudbay haatana la karantiimeeyey. waana xilli uu cudurkani ku faafay dhammaan magaalooyinka iiraan, culays badanna gaadhsiiyey, iyadoo uu cadaadis dhaqaale hore u haystay iiraan oo cunaqabatayntii maraykanku saaray ay la ceefisay dhaqaalaheedii. cadaadisyada isugu darsamay darteed ayaa haatan waxaa soo baxaya cabsi weyn oo laga qabo inay dhaqaaq milatari samayso, xilli uu ayatullaahiga iiraan cali khumeyni khamiistii sheegay in laga yaabo in fayraskani ku yimid weerar dhanka biolojiga ah oo ay cid uuni soo maleegtay, waxaana uu ku amray ciidamadiisa inay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagaga hortegayo weerarada noocaasi haddii ay jiraan. dhowaana waxaa jirtay in wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu sheegay in qaybaha uu maraykanku cunaqabataynta ka saaray iiraan ay yihiin kuwo uu ku doonayay inaanay iiraan awood u helin ka hortagga fayraskan iyo kuwa la midka ah. hadalka wasiirka ah oo macnihiisu yahay inay maraykanku sii ogaayeen in fayraskaasi uu iiraan iyo caalamkaba waxyeelan doono. milatariga maraykanku may qarin warwarka ay ka qabaan inay iiraan cadaadisyada dhaqaale iyo cudur ee ku soo kordhaya darteed ay u jeesato colaad ay ka qarxiso gobolka
ay ku taalo. Generaal Kenneth McKenzie oo ah taliyaha taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay Khamiistii mar uu warbixin siinayay golaha Senadka ee dalka Mareykanka in Iiraan ay ku dhawaaqayso tiro aad ugu yar tirada dhibanayaasha dhabta ah ee cudurka corona kaga dhacay, waxaana uu muujiyey inuu aaminsan yahay in faafitaanka cudurka ee dalkeeda gudihiisa uu ka dhigayo Iiraan mid khatar badani ka iman karto. Heerka waxyeello ee corona u geystayna ay raad ku yeelan karto sida ay Iiraaniyiintu go'aamo khatar dhalin kara u qaadan karaan. Isagoo hadalka generaalkuna ku soo beegmay maalin uun ka bacdi weerarkii Ciraaq ee lagu dilay askarta Mareykanka ee ka mid ahaa isbahaysiga ciidan ee Mareykanku hogaamiye ee Ciraaq ku sugan. waana xilli uu madaxweynaha Mareykanku Donald Trump ogolaansho u siiyey ciidamadiisa awoodda ay ku qaadi karaan jawaab celin ay ka bixiyaan falka lagu dilay askarta Mareykanka habeennimadii Arbacadii markii 30 gantaalaha garabka laga rido ee aynu baasuukaha u naqaano lagu soo riday oo 18 ka mid yihiin ay ku dhaceen saldhigga gudihiisa. Saldhiggaas oo ay deganayeen ciidamada Mareykanka oo ku yaala waqooyiga magaalada Baghdad. wasiirka difaaca Mareykanka Mark Esper iyo taliyaha hoggaanka wadajirka ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley oo ogolaanshaha madaxweynaha saxaafadda u soo bandhigay may soo qaadin magaca dhinaca ay ku eedeynayaan inay weerarada geysteen, laakiin waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in koox ay taageerto Iiraan inay geysatay falka. dhammaan tallaabooyinka laga yaabo inay iyagu qaadaanna ay miiska saaran yihiin, laakiin waxa uu sheegay inaanay qorshaha ku jirin in la bartilmaameedsado meelo gudaha Iiraan ku yaala maadaama buu weerarku haatan ka dhacay dalka Ciraaq gudihiisa. Mark Esper waxa uu sheegay in inta la weeraro saldhigyadoodii oo laga dilo laguna dhaawaco ciidankoodii aanay gacmaha laabanaynin oo dhinacii waxgeystayna aanu ciqaabta ka baxsan doonin, iyagoo ay Mareykanku hore ugu celcelin jireen in dilka loo geysto muwaadiniinta Mareykanka ee dalkooda dibaddiisa ku sugan ay tahay khadka cas, Mareykankuna jawaab ka bixin doonaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga laftiisa Khamiistii waxa uu sheegay inaanu wax warwar ka qabin in fayraskaas ku dhaco kadib markii uu toddobaadkii hore casho la qaatay madaxweynaha Brazil Bolsonaro oo kaaliyihiisa dhanka saxaafadda laga helay cudurka corona. dalka Qatarna wasaaradda u qaabilsan arrimaha awqaafta ayaa Khamiistii ku dhawaaqday qorshe ay wax kaga qabanayso faafitaanka fayraska corona, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada iyo badqabka dadka ku tukanaya masaajidada la soo koobay joogitaankii masaajidada oo albaabada masaajidada la furi doono xilliga aadaanka lana xidhi doono marka salaada laga baxo, iyadoo aadaanka iyo aqiimka salaad kastana loo dhaxaysiiyey waqti 5 daqiiqo ah oo kaliya. dhanka dalka Faransiiskana madaxweyne Emmanuel Macron oo khudbad telefishinka uga jeediyay habeenkii xalay dadweynaha Faransiiska waxa uu sheegay in fayraska corona iyo faafitaankiisu ay yihiin dhibaatadii caafimaad ee caamka ahayd ee ugu xumayd ee Faransiiska soo marta muddo hal qarniya, waxaana uu ku wargeliyay dadka Faransiiska in si ku meel gaar ah loo xiri doono dhammaan iskuulaadka iyo jaamacadaha dalka ilaa amar dambe. Macron waxa uu weydiistay sharikadaha iyo dadka loo shaqeeyayaasha ah inay u ogolaadaan shaqaalahooda inay shaqada ku qabtaan guryahooda wixii suuragal ah. dadka waaweyn ee xanuuna dareemayana ay khasab tahay inay guryahooda ku nagaadaan. waxaase uu cadeeyay madaxweynaha Faransiisku in doorashooyinkii dowladaha hoose ee toddobaadka dambe ku taariikhaysna ay xilligoodii dhici doonaan.